السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتي ذا ميلك ستوك سجنتيهين دنيا دعالة ذا أدبان إذين سلام يا ميلك ستوك سجنتيهين وولاشين سمسم هيدافين يا مركلة ما شاء الله تبارك الله دمانتي وحيدنكم سلام يا سلامة إسلامك ميلك ستوك سجنتيهين با ومركلة يو فيديو عصوب ما شاء الله تبارك الله ولا لها يجلس عضو بيج كنا سمسم هيدافين بيج waxaa idin leeyahay aad u mahadsantiin sidaa noola socotaan qiimaha badan waxaa idin leeyahay walaalaha nagu cusub page-ka follow gareeya insha Allah tacaala like-tan ugu dadaala si aad u aragtaan insha Allah tacaala oo aysan idin dhaafin barnaamijyada aan soo gudbiyo maasha Allah tabaarakallah faa'iidooyin badan ka baxo channel-ka iyo YouTube-ka iyo page-ka Facebook-gaba insha Allah tacaala هذا إنك جودة مع علينا وحنا لا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم هذا إذن وضع السلام يا دمانتين ملك سوق سجنتين مانتا ومركلة برنامج كني الله مقع بحي أرمها بالشدة مركا قيبة بدنا نقصو كلا قاعدة ناس إذا هم ربيت ينكو وش أجي أنا أنتي دويت وحا يقال قيب قاعدة نيسي ولا شيء ليلى ومصاحبة دي ليلى السعيد ما شاء الله تبارك الله ولا لها قفك ربي إنه يقلق يبقاته ونسود وينيا إن شاء الله تعالى وأنا يقلق يبقى ذكرتها إن شاء الله تعالى دارتي إنه يقلق يبقى ذاتي إن شاء الله تعالى مركز قيب أيان ما عرفت كوسو قاضنا قيبت مركز أن كوسو قاضنا إنه أيانا كاضلنا لكن ودمانتيس وبرنامجك أريمها بلشدة أيان الوذير هذا ما أنت مركب وحن كهالينا wiil Soomaaliyeed oo idinka ba aragteen oo walaal Soomaaliyeed ah oo maalin dhaweyd la galiyay midi qof baa midi galiyay isagoo jooga meesha shaqada marka ma sha Allah tabaarakallah walaal Soomaaliyeed iyo walaal kale gabadhan ka fahmaya kulli ka gartay aniga luqadeeda gabar Soomaaliyeed ah haleysay dad kale oo ajnabi ana meesha way joogeen kulli Soomaali wiilasha inay ku jireen laga yaabay marka waxaa dhacday waxaa dhacday markaa in wiilkii Soomaaliga ahaa ee dhaawaca gaaray maartay gabadhii aad u naxdo walaasha ahayd ilaahay khayr badan ha siiyo wax badan ay u qabatay run ahaantii familkiisa wacday isagay la hadashay waxaas oo dhan waa wax loo baahan yahay markaa waxaa kula talin lahaa qof kasta oo Soomaali ah boqolkiiba 99.9 99.9 way hagaajisay gabadha walaasheen ah aadan ugu mahad celinayaana ma sha Allah tabaarakallah laakiin hal wax ayaan rabay inaan ku darsado oo ah laba arin oo yar oo ma aragtay ma sha Allah qof naga mid ah hadii uu gaaro dib uu soo gaaro ama qof walaalka Soomaaliyeed oo dib gaari aad aragtidba waa ogahay in gabdhaha Soomaaliyeed nahay ama rag iyo dumarka isku mid maaha in aad uga calool jircan nahay waa ogahay oo aad uga ma aragtay uga naxariis badan nahay إلهها دتك ونحريستو إلهي دتك سنة واسكو نحريستان لكن قبل ولا شيء ما شاء الله تبارك الله غير بدن الله سيو هادي لعل وحاسو كلا دعان هاد wax wanaagsan bay samaysay laakiin hal wax ayaan rabay inaan kala taliyo walaalaha Soomaaliyeed rag iyo dumar meel ka sugan yihiin ma sha Allah tabaaraka Allah waxaan dhihi lahaa markii oo familkiisa la wacay wiilka oo la dhahay wiilkii dhaawaca gaaray wadnaha wax ka gaareen oo midi laga galiyay markii la dhahayo kaleeto in la yiraahdo qofkii familkiisa hadii laga naxiyo wuxuu sameeynayaa wadadii inuu highway-ga soo qaataa dhici karto jidkii uu maraa naxdin zaid qofka xataa inuu accident gala dhici karto marka hal xabaan idinku darsan lahaa oo aan walaalahay ma aragtay ku advice gareyn lahaa dhamaan naftiinaba in qof hadaa aragtaan wax ku dhaceen oo Soomaaliyeed oo walaalka ah waxba uma awoodid kaleeto baryo uma awoodaa in niyada u dhistid Soomaha marka waa ina qofka niyada u dhistaa inta dhihi lahayd Allah waa ku dhacay wadnaha laga galiyay mididii Allah nixnixi lahayd adigii oo naxsan ayaa waxa la rabaa qofkii maadaama isaga xanuunka uu haysto kaligiis oo wixii xanuunka uu ku kaliyahay adigana aad ka naxayso qof walaalkiisa tahay waxaa la rabaa inaad tiraahdid walaal wad caafimaadaysaa insha Allah waa ku duceyneynaa ilaahina caafimaad ku siinaa waxba ha welwelin waxaan oo kale way dhacaan waa caafimaade nafta ilaaha dadka ma aragtay waqtigeeda ma dhaafayso laakiin waxaa la rabaa qofka nafta inaad niyada u dhistid midda labaad oo aan rabay inaan kala hadlo inta kale walaasheen baa dhamaysay walaash caawinaysay ilaahay ha caawiyo ayadana aakhiriya adduunba
wax wanaagsan ayay samaysay waa wiilkii midida wadnaha laga geliyey ee aan ku arkaynay facebooka marka midda kale aan ku darsanayo waxaa waaye faamilkiisa markaa wacday xataa wiilkii ayaa wuxuu yidhi ha ka nixinin way cabsanayaan way naxayaan adigoo u sheegaya haddana waxaa la yidhaahdaa qofkan dhibkaana soo gaaray qofkiini waxaasaa ku dhacay midiyaa la geliye xataa dheh laakiin midida meesha laga geliyey meel halis haddii taa u sheegin naxdin zaa'ida qofka kasii qaadaya xataa waxaa dhici karta inuu accidenti galo wadadii ma aragta wax kusoo gaaraan marka insha allah tacaala barnaamijkeena maanta arrimaha bulshada arrintaas ku saabsan yahay in haddii lacalla ay wax dhacaan oo saasoo kale wax u dhacaan ama qof xabad ku dhacdo ama midi la geliyo aad aragtid in aa adiga is adkaysid oo qofka niyadda u dhistid dadkiisa markaa wacdidna ayagaaba u imaanayo arkaayo laakiin inaa adiga ku tiraahdid dhaawacaa gaaray waxbaa ku dhacay u imaada laakiin wax serious ma insha allah wad arki doontaan markaad timaadaan waxba ma aragti kuuma sii faahfaahin karo laakiin insha allah tacaala wadadan caadi tartiib usoo drive gare qofkaada markaa u imaadaa arki doontaa waa caadi muxuu ahay kula hadli karaa qofka haduuba hadli karo si kastaba ahaato qofka hadduu aad u xanuunsan yahay xataa xoog ha ugu sii sheegin insha allah tacaala tartiib maaragtay ugu sheeg qofbaa halkaa iga salaamay meesha maraya marka aadaa u mahadsantihiin inta kale idinkaa dhameeyey soomaaliyay sidaa isugu gargaartaan ilaahay idinkugu gargaaro muxuu ahay xumaanta kale ilaahay idinka badbaadiyo intiina xumaanta maaragtay ku maaragtay samayso dad badan oo xumaan kusoo gudbiyaa jira social mediaha dadna dadkay caawiyaan sidii walaasha ayaan dhaweyd dadka caawinaysa ilaahay khayr badanaa siiyo qof walaalkeedu xanuunsanay aragtay oo midi la geliyay aragtay ilaahayna wiilkaas ha caafiyo inta naga dhimatayna ilaahay subxaana watacaala ha u naxariisto inta dhaawaca naga aana ilaahay ha noo caafiyo qurbaha dad badanaa maaragtay lagu dilay dad badan ay dhibaato kusoo gaartay ilaahay subxaana watacaala dadkeena ha xifdiyo meel kastay joogaanba soomaali waxaan idin leeyahay ilaahay subxaana watacaala siduu muslim nooga dhigay aan diinteena ugu dhaqanno dad badanaa isdulmiyo oo soomaali ah dad badanaa dhibaato isku geysto iyagoo soomaaliya isdilayaan wadanka gudihiisa isku dilayaan banaanka isku dilayaan wadanka banaankiisa yacni wadamada qurbaha aadaa idiin wada salaamay iska dhiga dad muslimiin ahaa nahay iska dhiga inaad ku dhaqmaysaan markastaba diintii sunnadii nabigeena raaca aan raacno dhammaanteen sala allahu alay wasalam ani xataa waa ku jiraa dadka aan sheegaayo dhammaanteen aan iswada garab qabanno markaasuu ilaahay noo naxariisanaa marka annaga isku naxariisano aadaa u wada mahadsantihiin salaamu ullahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaan dib dambe hawada ugu kulmi doono waxaan idin leeyahay salaamu ullahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu